بسم الله الرحمن الرحيم وقعي محمود عادل شاعير xildhibaanka aniga imatalaya igu jira Puntland waxaan aniga hadda igu qiimeysan yahay nin aan imatali karin ummadda soo dooratana imatali karin kuna qiimeysan in uu sharcigiina jabiyay kitaabkiina jabiyay laaluushna qaatay saas uu igu qiimeysan yahay waxaanu ka filaynay inuu noqdo nin ka warqaba dadkii doortay ku soo noqda xogtooda ogaada dhibaatadooda la socda dawladda gaarsiiya waxa ka maqanna dawladda u sheega waxa asaga lagu leeyahay oo ummaddu wakiilka ka yahay ay leedahana uu ka qaado dawladda una dhaxeeyo tii haddii laga waayay wuxuu noqonayaa nin aan matalayn waxa uu sheeganayo 2019 xildhibaanka u baahanahay waxa weeye xildhibaan muslima reer Puntland hanti ma guurta leh iyo mid guurta oo kala guri leh oo gaari leh oo gaadiid leh oo ganacsi leh oo ilmihiisu iyo reerkiisa iyo xaaskiisu degan yahay wadanka oo jaamacadaha ay u dhigtaan oo iskuulada u dhigtaan oo waxbarashada ugu jiraan oo ka naxaya dhibaatada iyo amni xumada magaalada haysata kuna fakarayo horumarkeeda iyo amnigeeda inuu noqdo mid waara waayo waxa yaala oo uu ka naxaya hantidiisii iyo moodkiisii iyo maalkiisii iyo dhashiisii baa taala maadaama uu yahay ninkaasi nin ka fakarayo wuxuu u qalmaa inuu noqdo xildhibaanka matalaya gobolkaas iyo guud ahaanba Puntland waxaase ku haysta mid yiraahda 29 bishaan waxaan ka soo duulay London 21 waxaan joogay Nairobi 22 waxaan imid Puntland markuu garoonka ka soo degana boorso madow wata mana laha guri kuma leh gaari kuma leh ganacsi kuma leh madagana caruur ma dhigato iskuul waxa weeye waa nin boorso wata sida daraadeed ninkaasi meeshii uu degaba hotel buu ka degayaa Garowe hotel Boosaaso waa hotel Jiriba waa hotel meesha la yiraahdo Kismaayo hotel buu ka degayaa Burco hotel buu ka degayaa Garowe Gaalkacyo hotel buu ka degayaa hadduu rabo xataa Maaneed hotel buu ka degayaa marka waa nin aan ka nixi karin ummadda uu matalahayo mana yaqaan kamana warqabo waxa weeye waa in la weydiiyaa su'aasha wuxuuna doonayaa inuu mas'uul ka noqdo ummaddaas hadda saa ka waa in la weydiiyaa in la yiraahdo axadii xagee jirta xildhibaanka mudan oo maantayto qaban lahaa xilka oo islaamka oo ka fakaraya aakhirada adduunka oo dadkiisa matali kara waxaa hortaagan qabiil iyo laaluush mana soo bixi kara ninkii wanaagsanaa oo ilaahay ka baqayay oo ummadda wax u qaban lahaa oo dadka ka fakarayay oo waajibka saaran garanaya oo aan laaluush qaadanayn oo aan sharciga jabin maanta waxaa reebay oo gadaal mariyay nin odayahoo lacag la siinahayo iyo nin la leeyahay jif hebel weeye jif hebel iyo laaluush baa kala reebay kii xumaana lacag buu baxshay asagaa galay kii wanaagsanaana meel cidlaahu fadhiyaa laaluush iyo lacag iyo malaayiin dollar baana laga hayaa mana hayo